بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً مركو هربا السلامتين قلدين بريش تي في برشلونة أكسنا ومركي سوكين الرئيسي وربعين تكلوان السرقناي أنت كدب وحنا هل كان مركو الرئيسة تعسيد تيرانيا لو قدنا يا شيخ خليف حسن جدال ومالنتي جمعة حيتكو جريدي مقالة تنهرجيسة قرن السؤال لأنه لما كتحسيدين يقول إسكون سو تحسيدي نين قرن بوها رنتي واحد بدن ذلك يدك أصوات طري nin ehludiin buu ahaa cilmigii ilaahay baray ummadda uga faa'iideeyay nin nabadayn taqeeyb libaaxle ka soo qaatay oo degmo kasta oo dalka kamida ama gobol kasta oo dalka kamida ka soo shaqeeyay buu ahaa waxaan leeyahay ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo innagana ilaahay samriye iimaan dhammaanteedba guud ahaan qaranka Soomaaliland oo dhan ha ka siiyo qodobka haddaan ka gudbo maalintii hore 28kii bisha waraysi halkan aan ku bixiyo waxaan ka hadlay arrintii abaaraha alxamdulilaahi rabbil caalamiin abaartii ilaahay way naga soo jabiyay نعمدي إلهي ما إنود أذي نعمك إلهي بشر وحنا قباقيا إني كحمد النقان لئن شكرتم لأزيدنكم وحكستوا كحمد النقضون نمعو حق بك عقدت ماد إلهي وكوسي هذين نسقان تدر إلهي وكحرير مرينيا وحكلون بدك جوابينيا إني ددالان ويدرك وحكلا الصباحان كعنت هذا وحيد كل الصباح وأيوبا وحقوقه وقتي البارد كي روب وقتي الروب كداي ومدة أنت كسر دوقتي وأنا وقتي البارد كي من تاجرنا هي إنكي عقف هلي كرا وعقف تيسا وحقوقه كي دبي هلي كرا يا دبي جيسا وحقوقه كي لبدا بقى أنكرين وبرتي سميه جيستي سجرديس أيام أمد السماء اللي أنا وباقية هالسنة وقضب كلابات يعني هل كان عن دوري ما أنت إن كاي إعلاميو تصدق هذا عن دوري إن كان لو حوي يقول دي جد دي أبارها جد دي مدحونا جمهورية السماء اللي أنا مجعبي كهولقل كأبارها مدحونا كحيان جمهورية السماء اللي أنا تشير مان كهامدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي وزير الدين تيجي وقافة خليل شيخ عبد الله وكم بدها شيخ حسن عبد السلام أو علي عثمان وكم بدها جديد سفنتي قرن كوحوين بيترين ومضى أنتي كسوق قيب قاضتي أوارتاسي إدلال كوذا يشيل كوذا كوب حسي جودة يدي بدبنا وهم هذا نقيا وحلا حسنات باش قيستي وأنا مد إذن كور رئيس أمالنت يوم القيامة وحأبها أنتي نو إذن كسي هريوي تدكين يدلكين ناس معدونا كسب باك كسبتين وحلا يدلكين نكلا ومضى وهيسان هلكا كسي لبلاوا تعمرك أن أنت إذن كجدبو وحكلا وأندوني هلكن قلب كلا إلى ما أنت كحلو dalkii la oran jiray Soomaaliya waxaad moodaa bariyahan dambe dawladahan dawladoodu inay had iyo jeer ay inta badan shaqo ka dhigato had iyo jeer midnimada ummadda Soomaaliyeed ayaa muqadas ama Soomaaliland baa qayb ka ah wixii Soomaaliya loo sameeyay qodobkaana carabka ku adkeynaya waxaan leeyahay war Soomaaliland iyo Soomaaliya laba dal bay kala ahaayeen Ingiriis baa Soomaaliland gumaysan jiray koonfurta Talyaani baa gumaysan jiray laba entity oo حدود معينة كلا وينو هين runtii wixii markaasi aan jirin in la isku maaweeliyo ma aha xornimada markii Soomaaliland ay qaadatay 2026kii June 1960kii adduunyada wadamo badan oo kamid ah caalamka ayaa aqoonsaday kadib koodii luuli ayay koonfurtuna qaadatay baadidoon midnimo ummad Soomaaliyeed oo shanta Soomaaliyeed oo dhan la isla doonayay ayay ku timid inaynu mar wax wada dhisano tiina way suuro gali weydo maanta NFD waa dawlad gaar ah dalka Kenya ka tirsanto dadkeedii sidaasay door biday Soomaalida Itoobiya walaalaheen iyo kilalka shanaad dawladda federaalka Itoobiya ka tirsantahay rabitaanka shacbigaas aanay ku timid Djibouti waa taa calankeedu oo jumhuriyadda qurumaha ka dhaxaysa ka babanaya ummad gaar ah iyaduna ay noqotay anigoo ku hambalyeeyay Djibouti doorashadiisa nabad ahayd uga dhacday iyo madaxweynahooda dib u doorteen mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo wanaag marka ka dambeysay u sii siyaadayaan oo kale Ilaahay haydiin siyaadiyo kuna hambalyeynaya waxaan leeyahay war midnimadii ummadii Soomaaliyeed shantii Soomaaliyeed la isla doonayay way kala danaysteen koonfur iyo waqooyi sabab la isla daba socdaa meesha ma taalo waxa kaliya aan ka hadlayaa qodobka quraatay aan carabka ku adkeynaya waxa weeye Soomaalinimadu ma aha xamar iyo Hargeysa oo dawladooda dhista Soomaalinimadu waa qowmiyad waa dhaqan waa luqad waa wax intaas oo dhan ka balaaran sida aad moodaysaan ka balaaran Soomaaliga maanta NFD jooga way naga xiga Afrikada kale ka Itoobiya jooga Afrikada kale way naga xiga ka Djiboutiyaanki wada ogtiino Soomaali sida ay Djibouti uga ayday dadaalkii ay gashay way naga xiga marka hadii aynu kala danaysanay oo danteedii aynu dib u yabayabanay dulmi ka dhacay midnimadii awgeed wixii la isku oran jiray Soomaaliland ay qaran noqotay idinna wali dhiigu ku qubanayo koonfurtii wax la walaalayaal sameeynaanu jecelahay
wadajirkiina aanu jecelahay inaa wax noqotaan baanu jecelahay riyadan aan shaqaynayn ha ku daalina oo dantiina garta waxaanu maanta maraynaa doorashadii 2017 haddii ilaahay suuro geliyay inay dalkan ka qabsoonto tii koowaad ee dawladaha hoose 2002 bay ahayd tii madaxtooyada ku xigtay oo tii labaad ahayd oo 2003 ahayd isla 2003 waxa dhacday doorashadii kale ee doorashadii tii madaxtooyada 2003 bay ahayd 2005 waxa ku xigtay tii baarlamaanka lagu soo doortay mar labaad waxa ku xigtay tii madaxtooyada ee 2010 ahayd mar kale waxa ku xigay haddana tii dawladaha hoose iyaduna ayaa iyana ku xigtay aftii dastuurkaas ayaa intaba ka horeysay 2001 ahayd tii toddobaad baan imika u diyaar garoomayaa qarankani diyaar u yahay inuu ka qayb qaato iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan uga mahadnaqayo tanaasulkii uu sameeyay ee isaga oo dastuuriyan xaq u leh inuu mar labaad tartamo 5 sano oo kaliya markii uu xilka hayay madaxda kale xisbigayga ayaan xaq siinaya waxaan runtii Afrika ka dhicin weeye waxa dunyada naadir ku aweeye waa ogtihiin wadamada kale Afrikaanka ah Museveni iyo Mugabe iyo ragii dhowr iyo 30 sano fadhiyo wata maanta la dhaqaajin lahayd waxa la Axmed Siiraya taariikhda uu dhigay waa mid lama ilaawana Somaliland oo dhan xalgal u ah taasina intaasi ayaan ka leeyahay ugu dambeyntii shacabka Somaliland oo dhan waxaan ugu baaqayaa midnimada iyo wadajirka iyo walaalnimada dalkani wuxuu international community-ga member kaga noqon karaa oo wax ku noqon karaa oo aynu qaran ku noqon karaa taamo inta inaga dhiman ay noogu iman kartaa wadajir walaalnimo wax soo sheeg iyo inaynu meel u wada jeedno tacabkeena iyo taladeena aynu midayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ما شاء الله